dowladda Soomaaliya waxaan faagtay oo dadka oo hooyayaasha looga qaadanayo ilmahooda oo la leeyahay ma rabto hooyo walba cunugeeda way rabtaa qof cunugiisa nacaya ma laha. halkaan waxaan soo galay maanta inaan ka hadlo dhibaato ii haysato nin iskursan ii geystay kaasoo la dhahay magaciisa Absanaa Cabdulaahi kuna magac dheer Angola Hiiraan Sweden ku joogo Guuleed Maxamed Xaanshe waxaan u dhalay gabar wuxuu dhahay gabadhaada waa ku wadaya markaan dhahay waayahay gabadhii oo Sweden geeyay wuxuu dhahay gabadhaada maalin way ku waday weyn lacagta aan ku qaatana waxaan ka siinayaa oo dhahay markoo halkaas geeyay wuxuu dhahay farxiyo waxa laga baahan yahay sawirkaasoo inay hooyo walba oo cunugeeda baasaboor qaadanayo oo maxay u baahan tahay gabadheeda ana gabadheeda waxay u baahan tahay ma diidi kari Cabdulshideeyo igeeyay sawirkii laga qaaday wiil abti u yahay dawo daray sawirkii laga qaaday waraaqa laga sameeyay oo been abuur waraaqdaasoo gabadheeda ma u baahno mana rabto dowladda Sweden oo gudbiyay marka Soomaaliya dhibaatadii haysataa waxay tahay tan maanta intay soo fadhiisatay sidaan u fikirayna HB-gayga oo shan noqoy taasoo inuu beeniga sheegayo hooyo walbana cunugeeda way jeceshahay hooyo cunugeeda saxiixayso ama waana cadeyso maanta ma jirto warqadan oo been abuurkan Cabdulshideeyaha waa taasa waa u jeedaan anigana tayada saxda waa taasa waa u jeedaan marka wuxuu kaloo idhahay macallimada iskuulkeeda wuxuu ku dhahay gabadheeda hooyadeeda aan u geenaya macallimadii la soo hadashay ilaa 6 bilood hadal gabadhii oo ku khasabay wuxuu dhahay ilaa 6 bilood hooyadeena la jooga ku dhahay waxay ila joogtana malaha maxaan ku sheegahay hadda walaashiisa taa way soo caanaysa waxay leedahay nolosha eeyaa ku nooliyay ayaa ku noosha gabadhaadana ma arkaysid asigii waxaan dhahay walaalo waxa maxay u sameysay gabadhaada hooyadeeda yahay oo cunugeeda saxiixaysan ma jirto markaas wuxuu iigu dhahay waa edab daran hooyaday lixdeedii lambar amaaysi warani waxaan naga dhaxay cunug ama ku sii kariyaa markaas oo daama isiibaysid waa ku dilaya anaya naftaada iiga cabso oo idhahay anigana maanta ameja isoo badisii ina walaal ana qabin wax ila dhashtay malaha wiilna ma ila dhalan gawarna ma ila dhalan aabe waxaan ku ahay madi adeerna ma qabi eedana ma qabi maxaa ku jeka keligay aabaheena wuxuu ahay madi marka waxaan ka codsanayaa intii wax ay qaban karto inay wax iga qabato dowladda Soomaaliya waxaan faagtay oo dadka oo hooyayaasha looga qaadanayo ilmahooda oo la leeyahay ma rabto hooyo walba cunugeeda way rabtaa qof cunugiisa nacaya ma laha dugaagtaba Allah ka dhigay qof walba cunugeeda way jeceshahay dowladda Sweden ilaa tan Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ninkaas wax la iga qabto gabadheeda hadda xamar ay joogta ma aanay gabadheeda u baahanahay gabadheeda igu soo wareej markaas wuxuu dhahay naaya hadda agteeda imaatid waa ku dilaya dowladda Sweden wuxuu ugu sheegay in gabadheeda ila noosha ilaa 6 bilood ila noolaanayso oo ugu sheegay anigana gabadheeda aarawa